waqti ku dhow laga soo bilaabaya taasi waanay anu idin boqol jeer ka hadlaynahay beesha gumaysiga lugooyun bay meesha la joogtaa waad ogeydeen gabadhii Soomaaliyeed magaceeda aad uma xafiisnay almismiya loo jiray lagu dilay xalanay iyadoo shirka soo baxday ninkii albaabka agteeda joogay oo madaxa ka toogtay waad ogtiin meeshaasi inaan Soomaali gali karaa jirin oo nimanka sangaruur la raadey madmadoobi ay ku ilaaliyaan gaalada cadcad labadii gaalun bay salaaninay oo kii cadda ayaa la ilaalinay kii madoobana gaar buu ka hayaa Soomaalana la iska ilaalinaya markaas waxaad leedihiin afkiina ku badan tahay Soomaaliyeed saaxiibada Soomaaliya ma daneeyaasha maartay taageerayaasha Soomaaliya maxay iga taageerayaan badaydi bay kalluunka ka dhameysteen macdanteedii bay meel walba ka guranayaan naga dhameysteen xoolaheennii bay maartaanay baabiyeen dhirteennii baa maartaa ay shideen oo maartaanay rag u wakiisheen iyagu marka iyagu istusaya inay iyagu in col yihiin raggaas mana aha col iyagu waa loo yahay marka waxa weeye beeshaas xalna fadhida waad u taqaanaa idinku saaxiibada Soomaaliya annaan cadawga Soomaaliya u arkayo waa in Soomaaliya ka qaata talaabo laakiin ma idan ogeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وحوي إلهي وهن ليه إذا أن إذن كهين مسلم كهين إسلام هين هكذا إننا لطليال يكو سرتين تكو أمنتان يكو حقال دي النقطة مركز إسلام نمضان شغلنا معيدنا ذكدونيا إسلام نمضان شغلنا Soomaaliyeed ama siyaad ama siyaasi noqda ama mutacallim noqda ama wadaad noqda ama macmuutar noqda ama odayaal noqda islaamnimada sheeganay mata ay maamulaan ba maartaanay beeshaasi cadow inagu ah ee Ilaahay noo cadeeyay ee afkooda ay ka soo baxbaxayso naciibkayna